madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu maanta kormeeray xarunta Guddiga KMG Doorashooyinka Puntland halkaasi waxa ku soo dhaweeyay guddida oo hogaaminayo gudoomiyaha guddida mudane Guuleed Saalax waxa uu kulan la qaatay madaxweynuhu guddida waxa ay warbixin ka siiyeen sidii quruxda badneed ay u qabsoontay doorashooyinkii hal cod iyo hal qof dadka degmooyinka u fayn eel iyo qardho ay ku soo doorteen xubnaha ku metelaya golayaasha deegaanka doorashadaasi oo doorasho taariikhiya madaxweynuhu waxa uu bogaadiyay shaqada wanaagsan ay qabteen guddida KMG doorashooyinka Puntland ee TPEC waxaana dowladda ka go'an inay hore u sii wado hanaanka nidaamka xisbiyada badan si loo dhameystiro in doorashooyinkii kalena la qabto dhammaan degmooyinka Puntland harsan madaxweynuhu waxa uu sidoo kale kormeeray qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay xarunta Guddiga KMG doorashooyinka Puntland halkaasi oo qaybahooda kula kulmay shaqaalihii lafdhabarta u ahaa shaqada ee ka shaqeynaya goobaha kala duwan ee shaqadaas dheer waday waxaana uga mahadceliyay wiilashaas iyo gabdhahaasi dadaalka ay sameeyeen isagoo rajeeyay in waliba hawsha ay safar ka qodneen oo loo baahan yahay in la isu diyaariyo sidii loo qaban lahaa doorashooyinka kale degmooyinka kale in laga qabto doorashooyin golo deegaan oo hal cod iyo hal qof ah guud ahaanba dadka Soomaaliyeed waxay ahayd maalin taariikhi ah waxay ahayd guul Puntland guul Soomaaliyeed guul cid kasta oo reer Puntland ay soo dhaweeyeen adduunkana indhaha uu ku hayay waxa aad loogu bogaadiyay madaxweynaha inuu ka dhabeeyay ballanqaadkiisii iyo yoolashiisii mid kamid ah kuwii ugu waaweynaa xilligii ololaha doorasho ku jiray oo ahayd in uu maaragtay uu ballan qaaday inuu hirgelinayo nidaamka xisbiyada badan haatanna uu hirgeliyay noqdayna madaxweynihii ugu horeeyay oo Puntland ka qabta doorasho hal cod iyo hal qof ah Soomaaliyana rajo badan gelisay iyo adduunka in Soomaaliya mustaqbalka doorasho noocan oo kale ay ka dhici karto aad iyo aad